magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya waxaa heshiis taariikhi ah ku kala saxday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali heshiiskaasi oo dhigaya in Itoobiya ay awood u yeelato amaba ay dekad ka dhisato biyaha badda cas ee Somaliland iyo waliba saldhig military sida ay ku warantay warbaahinta waddanka Itoobiya ama warbaahinta ku hadasha afka dawladda Itoobiya heshiiskan ayaa socon doona muddo 50 sannadood iyadoo sidoo kale ay suurtagal tahay tiri warbaahinta Itoobiya in heshiiskan la sii kordhin doono haddii loo baahdo marka ay dhamaadaan muddada 50 sano heshiiskan ayaa sidoo kale waxa xusid mudan in ay ku jiraan in Itoobiya ay Somaliland ka caawin doonto dhanka tababarka ciidamada iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha Itoobiya ayaa heshiiskan ku tilmaantay mid taariikhi ah isla markaana ay doonayso inay ku sii fidiso amaba ay ku sii ballaadhiso saameynta ay ku leedahay gobolka Geeska Afrika iyo biyaha badda cas iyo waliba saameynteeda dhanka wadamada caalamka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa arintani ku tilmaamay mid